laga soo bilaabo subaxnimadii uu dagaal ku bilowday ilaa waqtigan qorraxdu markii ay sii daahirtay dacallada bari ee caasimadda Tehran kuleelka xagaaga oo aan la gaarin waqtigiisa ayaa leefaya holaca ka dhashay gantaalada duqeymaha hubka ugu casirsan dunida maanta ee ku dhacaya abbaara 8 aroornimo nabadda ayaa gees dheer looga laalay bariga dhexe oo dhan laba maalin ka hor markii isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil ay fuliyeen weerar dhabarjaba oo ku dhacay wadnaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran duqeyntu waxay ahayd mid qorshaysan waxana lagu bartilmaameedsaday aagga ugu dambeeya ee laga go'aaminayay masiirka goboliga waxana la beegsaday xarumihii ugu muhiimsanaa ay deganayeen madaxda ugu sareysa hogaaminta dalkaasi Iran siyaasad amni iyo dalkaba sida ay sheegayaan wararkuna waxa markiiba halka Mareykanku ay ku qadileen hogaamiyaashii ugu sareeyay ee dalka Iran oo hogaamiye u ahaa hogaamiyihii sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei kaligi ma dhimane ragii hogaanka u ahaa kacdoonka iyo difaaca Iran ayaa la godgolay taasna waxay ka dhigantay in Iran lagu sameeyay madax rogid wax aan haba yaraatee aan waxba loo hanbayn ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho weerarada kadiska u eg ayaa kuwa soo abtay rajo kasta oo laga qabay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran bishii ugu dambeysay dunidu waxa indhaha ku haysay dalka Cumaan oo dhexdhexaadiya halka ay ka socdeen wada hadal xal loogu raadinayay xaaladda iyo masiirka bariga dhexe balse subaxnimadaas dhawaaqa qaraxyada Tehran ayaa joojiyay isku day kasta oo nabad lagu baadi goobayay bariga dhexe hadda uma eka meel ay boos uga bannaan tahay diblomaasiyaddu waana bugcad ay ku siqayaan oo kaliya oo ay laga maqlayo siriga digniinaha dareenka madaafiicda iyo codka rasaasta ee aan kala joogsiga lahayn taas waxay muujinaysaa in dunidu ay cagta saartay dhabbihii dagaalkii saddexaad ee adduunka waxa muuqda saacad kadib markii Tehran la garaacay Iran waxay u ekayd mid leebka farta ku haysay waxaana si aan kala reeb la'aan u furtay albaabada cadaabta iyada oo gantaalada plastikada ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone-ta ku harqisay 6 dal oo kamid ah saaxiibada Mareykanka ee mandaqada bariga dhexe Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, Imaaraadka Carabta iyo Urdun ayaa noqday bartilmaameedka koobaad ee argoosiga Iran sida muuqata hanjabaadii Iran ee ahayd haddii la weeraro dabka u gudbi doono dariskeeda waxay noqotay xaqiiq ka dhabowday magaalooyinka waaweyn ee khaliijka waana istaraatiijiyad ay hore ugu tala gashay inay ku meel mariso danaheeda goboliga kagana hortagto in Mareykanku sida kaliya ay u saameyn karaan ay noqoto inay taabtaan saldhigyada uu ku leeyahay mandaqada bariga dhexe saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaala ayaana toos loo bartilmaameedsay dalka Qatar waxa si toos loo beegsaday saldhigga Al Udeyd oo ah xudunta ugu weyn ee Mareykanka ee goboliga inkasta oo nidaamka difaaca ee Patriot isku dayay inuu qabto gantaalada haddana dhowr qarax oo waaweyn ayaa ruxay saldhigga kuwaas oo burbur xoogan gaarsiiyay jidka diyaaraduhu ay ku ordaan hawada magaalada Dooxana ilaa hadda waxa haysta daryanka gantaalada iyo kuwa ka hortagayaba Imaaraadka Carabta gaar ahaan saldhigga Al Dafra la yiraahdo waxa uu la kulmay duqeymo isdaba joog ah wararkuna waxay sheegayaan in gantaaladu ay ku dhaceen gudaha saldhigga halka qaar kale ay ku habsadeen aaga kale oo dhamaantood ku yaala halka loo yaqaan Jumeirah oo Dubai halkaas oo dad rayid ay waxyeello ka soo gaartay Bahrain oo hooy waa taliska shanaad ee ciidanka badda ee Mareykanka waxa cirkaas ku shararay qiiq madow kadib gantaalo ayaa ku dhacay xarunka ciidanka badda ee Jumeirah sidoo kale waxa la arkay gantaalo si toos ah ugu habsanaya hotelka la yiraahdo Grand Sefer ee magaalada Manama halkaas oo hooy waa ciidamada iyo xubnaha diblomaasiyadda ee Mareykanka Kuwait saldhigga la yiraahdo Al Salam ayaa la kulmay mowjado drones inkasta oo badankood la soo riday haddana waxa aan shaki lahayn in dhamaantood qaybo kamid ah ay gudaha ku dhaceen oo ay horseedeen burbur soo gaaray nidaamyada difaaca ee Mareykanka waxayna khasaare soo gaaray madaarka diyaaradaha ee Kuwait kadib markii diyaarad aan duuliyaha lahayn ay asibtay Saudi Arabia dhowr gantaal ayaa la beegsaday xarumaha military ee duleedka Riyadh iyo goobaha shidaalka ee gobolka bari halka Urdun iyaduna ay sheegtay in soo riday gantaalo ku soo dhacay xadka ay la wadaagtay dhinaca Syria gaar ahaan saldhigga ciidanka cirka ujeedka Iran ee weerarka khaliifku wuxuu ku qotamaa xeelad dagaal oo si qoto dheer loo qorsheeyay Iran waxay ogaatay in saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalalka khaliijku ay yihiin kuwa ugu dhow ee gacanteedu gaari karto ayna yihiin meelaha u nugul difaacooda cirka oo uusan ku tartami karin kan Israa'iil oo kale Iran waxay muuqataa inay odorostay in haddii ay muujiso ama meesha ka saarto ama xanuujisaba dhaqaalaha iyo amniga dalalka khaliijka ay taas abuuri doonto cadaadis xooggan oo Mareykanka lagu saarayo inuu joojiyo dagaalka iyo duqeynta Tehran taas waxa si raacday in Iran dawladaha dariska dareensiinaysa culayska iyo khatarta martigelinta saldhigyada Mareykanka kuwaas oo ah meesha laga ambaqaado dhammaan gulufyada mandaqada ka dhaca Afghanistan, Iraq, Syria iyo Iran inkasta oo dalal badan oo khaliijka ay isku dayeen inay dhexdhexaad ka noqdaan colaadahan haddana Iran waxay u aragtaa jiritaanka saldhigyada Mareykanka ee dhulkan mid halis ku ah
amnigeeda qaran wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaana sheegay in aysan iyagu dooqan halka ay weerarayaan ee ay tahay saldhig Mareykan oo ugu dhow maadaama aysan gaari karin saldhigyada Mareykanka ee ku yaala gudaha Mareykanka falcelinta ka timi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka ayaa xambaarsan caro iyo calool xumo waxay adeegsadeen luuqad si adag ay ugu cambaarayeen waxay nagu yeereen weerar fuleynimo oo lagu soo qaaday madax banaanidooda Sacuudiga oo horkacaya baaqyada goboliga ayaa adeegsaday ereyo ay ka mid yihiin daandaansi khatar iyo xadgudub qaawan waxaana uu xaqiijiyay in kastoo ay hore u ballan qaadeen Tehran in dhulkooda loo adeegsan doonin weerar ka dhana haddana aysan u dulqaadan doonin in gantalada balaastikadu ay ku hobtaan magaalooyinkooda Imaaraadka iyo Bahrain waxay ugu dhankooda muujiyeen falcelinta Iran ay tahay mid dhabarka ka jibinaysa mabaadi'da caalamiga iyo daris wanaaga waxayna sheegeen la beegsaday xarumo aan marnaba ka mid ahayn loolanka hadda taagan waxaana la saadaalin karin in dowladaha khaliijku ay jawaab militari bixin karaan oo duqeymahan ay ka jawaabi karaan waxaana shaki lahayn Imaaraadka Bahrain Kuwait iyo Sacuudiguba in isku raacaan qorshe isku dhafan oo looga jawaabi karo talaabada ka imaanaysa dhinaca Tehran balse falanqeeyaashu waxay u badan yihiin jawaabtu ay ku ekaan karta xakamaynta nafta cunaqabatayn dhaqaale iyo ujeedada xiriirka diblomaasiyadda ee Tehran dhinaca kale waxay dhaha falanqeeyaashu u jiidatay in saldhigga weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo Ankara ee dalka Turkiga uusan ilaa hadda la kulmin wax weerar tani waxay muujinaysaa in Iran ay weli ka fakarayso xiriirka ay la leedahay Turkiga ama ay ka baqayso inay kiciso awoodda weyn ee NATO oo Turkigu uu ka mid yahay si kastaba aamusnaanta dhinaca Turkiga ee ku aadan duqeymaha Iran waxa ay waji cusub u yeeshay dagaalka iyadoo la isweydiinayo inta ay Iran ka fogaan karto saaxiibada kale ee Mareykanka ee aan ku jirin liiska 6 dal ee la duqeeyay waxaana goor dambaba soo raacday Cumaan taasoo macnahan ka dhigan in gacantoodu ay gaarteen kasoo wasiirka arrimaha dibadda uu taas afeef ka bixiyay wali dagaalku bilow inuu joogo ayaa muuqata isbuuciyo inuu qaadan kara ayaana si dhameystiran ay wararku u sheegayaan sida uu Trump iyo Netanyahu ay isku raaceen oo ay sheegeen 4 ilaa 5 toddobaad in xiisadu ay ku soo gabagabayn karaan oo dagaalku uu ku soconayo maalinta ka dambaysa bugacado horle ayaa colaadu ay ka sii qiiqaysaa kooxaha shiicada Ciraaq ilaa Lubnaanna way ku soo bireen dagaalka xootiguna waxa uu darsayaa xalka waxaana u badan tahay haddii la dhaqaajiyo oo ay meesha uu soo baxo mushil cusub ama hogaamiye cusub oo talada Iran la wareegay inuu sugayaan amarada uga imaan doona oo ay ka mid tahay in la qaato talaabo kama dambaysa oo Iran lagu badbaadinayo jiritaankeeda waana wax u eg dagaal goboliya oo si dhameystiran mantiqadu ay dhexda u galayso Mareykanku waxa uu wajahayaa xaalad adag oo sida uu kala doortay ayaad u adag tahay dalalka khaliijkuna waxa ay marti u yihiin hawlgalla iyagu aysan bilowgooda waxba ku lahayn iyo duulaan aysan qorsheyntiisa lahayn taasoo ka dhigaysa in dhaqaale kasta oo ay bixiyeen nidaam difaac kasta oo hawo ay keensadeen iyo si kasta oo ay Mareykanka taageero uga raadiyeenba hadda ay tahay mid dalanteeda kalifaadda marka laga hadlay Iran in duqeynta wadamada khaliijka waxa loo arkay inay tahay bugcadda kaliya ee ay u adeegsan karto inay awoodeeda muujiso Mareykankana ay cadaadis ugu gaarsiisaa dagaalka waa la gaaray xilligii la joojin lahaa arqamka Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga haddaba haddii aad danaynayso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran